waxaan qaadanaynaa border sida loo isticmaalo. halaan waxay ahay casharkeenii hore, tutorialkeenii hore ayaan soo qaatay. haddii arki laadiin hale wardrobe fiida waa kana tutorialkeenii hore ayaan intaa soo qaadanay. okay zoom ayaan isoo leeyahay waa kana intaan tutorialkii hore ayaa soo qaadanay. waa kaasa halaan tutorialkii hore ayaan soo qaadanay. tutorialka haddii aad fahmi leedahay casharkii hore ku noqo. commentigan ayaa iska tirtiraya. commentigan waxaa leeyahay iska bax, waa tirtiraya. okay refresh sida ujeediin waxaa miis bedelayo. si aan u fududeeyo borderka kan dhan ayaa iska tirtiraya paragraphkan si macnaha oo noogu fududaado. kadib refresh ale paragraphkan waa baxay, laakiin stylekiisa waa joogaa. stylekan wuxuu raadinaya paragraph, laakiin paragraph ma jiro. asigana waxaa leeyahay iska bax. okay keliya h1ta ayaa isticmaaleynaa. okay border bala isla aragno. border asiga hal sadar qaab shortcut uu leeyahay sidii kuwan oo kale, marginka oo kale. qaab dheerna uu leeyahay, laakiin qaabka dheer ayaan idin tusinaya. kadib ayaan waxaan baranaynaa qaabka yar. qaabka dheer waa kana, waxaa leedahay border. okay border colorkeeda ay sheegaysaa. colorkeeda waxaa iska leeyahay blue. borderka waxaa kaa rabaa inaad colorkeeda ka dhigto blue. okay border nooceedan waxaa rabaa inaad ka dhigto style, inaad ka dhigto solid, mid adag oo xariijin leh inaad ka dhigto ayaa kaa rabaa. waa kaasa border noocaas blue. waxaa kaloo jira borderkan haddii aan rabo inaan yareeyo inaan weyneeyo waxaa la isticmaalaa border width. waxaa leedahay border width ayaa leedahay, kadibna waxaa leedahay 5 pixel. okay adiga ay kugu xiran tahay. waa kaan 5 pixel. haddii aad rabto cabiryada kale waa isticmaali kartaa. waxaad dhigi kartaa 2rem waa isticmaali kartaa. taas adiga ay kugu xiran tahay. waa kaasa border noocaas ayaa yeeshtay, adiga ayay kugu xiran tahay muhiimada. okay saddexdan sadar waxaa jiro hal sadar oo lagu soo gaaban karo. okay sadarkaas ayaa isla arkaynaa. waxaa leedahay border. okay border ayaa leedahay. waxba style iyo color ma sheegaysa, inta ayaa value ku siinaysaa. waxaa leedahay colorka waxaa rabaa red ayaa leedahay. colorka waxaa rabaa red. colorka ayaa ka bilan maxaa ku nooceeda solid. waxaa leenahay solid. kadib haddii aan rabo inaan yareeyo, haddii aan rabo inaan weyneeyo waxaa leeyahay oo kale 20 pixel oo kale camal. redna waa ka dhignay. intaan comment ayaa iska saaraynaa. marka intaan iyo intaan waa isku mid, laakiin intaan waa shortcut oo lasoo gaabiyey. kadib browserkan ayaa tegaya. waxaa leeyahay refresh sida ujeediin waa kaasa. waxaa isku mid noqday saddexdan sadar 1 2 3 ilaa halkan waa isku mid. okay shortcut kala jiro kaasoo haddii aad rabto hadda kan borderada waa 4 dhinac. haddii aad rabo keliya ka waran hal dhinac. borderada badanaa laakiin looma isticmaalo. borderka badanaa waxaa loo isticmaalaa marka aad rabin waxaa inaa background aan siinin. tusaale kan comment yaa iska saaray. hadda waa background la-aan, keliya gaduudkaas ayaa ii saaran. qoraalka waa arki la-aan. waa maxay sababta? maxaa farta waa cadaan, backgroundkan waa cadaan, wuu isku dhex dhumooyaa. farta ayaa waxaan ka dhigayaa madow. waa kana meesha madowga ayaa dooranaya. okay waa kaas hadda waa ujeedaa. borderka badanaa asiga sidaan looma isticmaalo. inta ayaa waxaa leeyahay waxaa iga dhigtaa meelaan oo kale grey white oo dhexdhexaad camal. solidkiisa iska joogo. kadibna waxaa iga dhigtaa 1 pixel. badanaa qaabkan ayaa loo isticmaalaa. tusaale hadda example aan hore aan sameynaya waa kana border badanaa isticmaalay. backgroundku way caddaa, laakiin border 1 pixel ayaa isticmaalay. kan borderkii hal dhinac waay iyo geesaha badanaa qaabkan ayaa loo isticmaalaa. okay waxaa jira marka tusaale haddii aad rabo ka waran keliya
example keeniga kaliya haddii aan rabo ka waran qaybta kore leh inay border yeelato ama qaybtan oo midig inay border yeelato kaliya ama qaybtan hoose waxaa leedahay iyadana qaabka dheer waa sameyn kartaa qaabka dheer waa soo mari kartaa inta ayaa waxaa leedahay border ayaa waxaa ku taraysaa meesha aad rabto waxaa leedahay kale jiitin ayaa sii gelinaysaa top ayaa leedahay saas camal ayaa leedahay intana top ayaa ku wada buuxinaysaa iyo jiijintan okay qaabka dheer ayaa isla arkaynaa kadibna waxaa idin tusinayaa qaabka shortcut-ka okay inta ayaa idin tusinayaa waxaan soo koobiyeynayaa intaan ayaan soo koobiyeynayaa si waqti igu yaraado kadib inta ayaa keenaya inta ayaa waxaa ku darayaa kaliya jiitin oo kale taasoo everta ku xigto haddii aan leedahay top ayaa ku darayaa top intana sidoo kale jiitin okay top jiitintii ayaa iga maqan border top inta top ayaa laga rabaa laba jiitin ka dhiga hal jiitin laga rabaa maxaa waaye waad soo qabo borderka kor aad soo qabo kalarkeeda waxaa ka dhigtaa blue borderka stylekiisa waxaa ka dhigtaa solid borderka weynaantiisa waxaa ka dhigtaa 16 pixel kadib waxaa la refresh sida u jeedin waa kaasa kor ayaa la soo qabtay waxaa laga dhigay blue weynaantiisa waa kana waana solid okay haddii aan rabo kan inaan soo yareeyo ka waran haddii aan rabto inaan soo yareeyo sidoo waa sidoo kale waxa la leedahay border qaabka adaa ay raacaysa waxa la leedahay top kadib waxa la leedahay colorka sheegaysa red ayaa leedahay kadib waxa la leedahay solid kadib waxa la leedahay pixel karta sheegaysa 10 pixel oo kala camal kadib waxa la refresh sida u jeedin waa kaasa 1 pixel keeda kala camal ku soo celinayna maadaama background-ka cadaan ay tahay color-kana waxaa ka dhigayaa cadaan oo xoogaa dhexdhexaada kadib waa imaanaya waxaa la refresh sida u jeedin kor ayaa waxay yeelato border haddii aan rabo ka waran dhinaca midig waxaa leedahay meeshaan border top ayaa bedelaysaa waxaa leedahay border wide kaasoo dhinaca midig okay kadib waxaa la refresh sida u jeedin dhinaca midig ayaa border qabsatay border topna waa kana hadday waxaan ku sameynaynaa override macnaha waa sii bedelayaan tusaale saanay ahayd border top ayaa dhehayna blue ka dhig kadib haddana waxaa dhehayna border top intaa ka dhig marka tan ayuu qaadanaya markasto soo hadda haddii aan right aan dhaho right-keeda aa ku celsho inta ayaa hadda imaanaysa maxaa yeele waxa override ma lagu sameynayso comment ayaa iska saaraya kadib refresh sida u jeedin waa kana border right haddii hoos rabo ka waran iyadan waxaa dhihi karaa kale border bottom ayaa leedahay maxaa yeele bottom waa hoos kadib iyada isagan waxaa leedahay refresh sida u jeedin waa kaasa hoos kadib left haddii aan rabo ka waran dhinaca bidix waxaa leedahay left okay waa kana left okay waa kaasa dhinaca bidix haddii aan dhammaantood wado leftida dhinaca ka bixinaa borderkageeda ayaa leeyahay kadibna dhammaan ayay ku wareegsanaysaa hadda noocan waa solid waxaa jira noocankaas kale waxaa la dhahaa solid waa kan waxaa kaloo jiro dotted mid la dhahayo kan ayaa jiro refresh ayaa leedahay dhibic waay laakiin markuuna wuu yaryahay soo 10 pixel haddii aan ka dhigo markaas si fiican u arkayna sida u jeedin waa kaas waa dhibic waxaa kaloo jiro mid kaloo la dhahayo asigana dashed waa kana asigana refresh ayaa asigana waa noocan saddexdaas nooc ayaa badanaa la isticmaalaa waxaana ugu badan midkan la dhahayo solid kan ayaa badanaa arkaysa kuwa kalena waa isticmaali kartaa laakiin badanaa kan ayaa arkaysa soo muuqaalkii taasoo kaga video like saar channel subscribe saar marsid